boorsadii waxaa ka soo baxday eedadii. wiilku si lama filaan ah ayuu u yaabay, wuxuuna weydiiyey waxa dhacay iyo sababta ay ugu dhex jirtay boorsada. eedada ayaa markaas sharaxday sheekada dhabta. waxay sheegtay in iyada iyo aabbaha ay xiriir yeesheen 2 sano kadib dhimashadii hooyadiis, balse ay qarsoodi ka dhigeen maadaama uu markaas ahaa ilmo yar mana aysan rabin inay dhaawacdo. wiilka wuu aqbali waayey sheekada ay eedadu sheegtay. wuxuu aaminsanaa in tani ay tahay qorshe lagu daboolayo sirta dhabta ah ee rootiga. wuxuu ku adkaystay in ay jirto wax kale oo ka qarsoon, isagoo leh wuxuu ka shakisan yahay inay been u sheegayaan. wiilka ayaa markaas si adag u weydiiyey aabihiis haddii uu sheegi doono sirta cuntada, isagoo ku hanjabay in haddii uu diido uu qaadanayo in cuntadoodu tahay wax aan nadiif ahayn. aabbaha oo aad uga carooday eedaynta wiilka ma uusan jeclaan wada hadalkaas. wiilku wuxuu ku adkaystay in waxa uu rabay ay ahayd in loo sheego sirta rootiga ee aysan ahayn in la keeno eedo si loogu qanciyo. eedada ayaa difaacay aabbaha iyada oo tilmaamtay inuusan hadalka wiilka macno samaynayn, balse wiilku wuxuu ku sii adkaystay in sirta ay tahay waxa uu doonayo inuu fahmo. markaas ayay eedadu tiri in aabbaha uu wiilka ka ilaalinayo waxyaabo qaarkood. hadalkaas ayaa sii kordhiyey shakiga wiilka, isagoo isweydiiyey waxa laga ilaalinayo iyo sababta uu aabihiis u qarinayo wax ku saabsan cuntada ay sameeyaan. dood waxay noqotay mid kulul. aabahana wuxuu si cad u sheegay inuusan doonayn inuu sirta rootiga la wadaago. wuxuu sheegay inuu ka doorbidayo in xirfadiisa ay halkaas ku dhamaato intii uu ula wadaagi lahaa wiilkiisa. ugu dambayn aabbaha wuxuu ku dhawaaqay go'aan adag maadaama wiilku ogaaday isaga iyo eedada laga bilaabo maanta eedada guriga ayay usoo guuraysaa. wiilka aad ayuu uga carooday in aan waxba laga weydiin go'aankaas, wuxuuna weydiiyey sida hooyadiis u arki lahayd. aabbaha wuxuu u muuqday mid aan dan ka lahayn dareenka wiilka, taas oo sababtay in wiilku si caro leh guriga uga baxo banaanka oo dadka deegaanka ay isugu soo baxeen. nin kid ah ayaa wiilka weydiiyey haddii dukaankii rootiga ee qoyska uu xirmay. wiilku wuxuu xaqiijiyey inuu xiran yahay. ninka deriska ah ayaa ka xumaaday arrintaas, isagoo sheegay in rootigooda uu leeyahay dhadhan gaar ah oo aan meel kale laga helin. wiilka laftiisa wuxuu u muuqday mid la yaaban sababta dukaanka loo xiray. inkastoo uu had iyo jeer lahaa macmiil badan, wiilka ayaa dib ugu soo laabtay guriga isagoo mar kale weydiiyey sirta cuntada. aabbuhu mar kale wuu u diiday. wiilka wuxuu qaatay go'aan kama dambays ah. wuxuu sheegay inuusan qoyska ka mid ahaan doonin, wuxuuna qaatay shandadiisii isaga oo sheegay in maanta kadib u baaneen isaga iyo sirta rootiga. inkastoo eedadu isku dayday inay celiso, wiilku uu iska dhigo tiray wuuna ka baxay. wax yar kadib bixitaankii wiilka waxaa guriga yimid wiilkii oo soo xiray gar macmal ah si uu sirta u helo. wuxuu soo galay barxadda guriga wuxuuna la kulmay eedada. wiilka iskariyey wuxuu sheegay inuu maqlay in rootigoodu yahay mid cajiib ah oo uu doonayo inuu iibsado dukaanka si uu u ballaariyo ganacsiga. eedada oo aan garanayn inuu yahay wiilkii ayaa u sheegtay in dukaanka la xirayo sababtoo ah caafimaadka aabbaha oo liita. wiilka iska dhigaya ganacsadaha ayaa ku adkaystay inuu la kulmo odayga guriga aabbaha. eedada ayaa u yeertay aabbaha. markii aabbuhu soo baxay oo uu arkay ninka suudka wata, waxaa wejigiisa ka muuqday shaki. wiilkii iska dhigaya ganacsadaha ayaa isku dayay inuu ganacsi sameeyo isagoo dalbanaya in uu iibsado rootiga. markii aabbahu diiday, wiilku wuxuu kor u qaaday dalabka lacagta si uu aabbaha u tijaabiyo. eedada ayaa aad ula dhacday lacagtaas, laakiin aabbaha ayaa weli diidanaa. wiilka iskariyey wuxuu markaas dalbaday lacag ka badan, taasoo keentay in aabbaha ka shakiyo sababta qof u bixinayo lacag intaas leeg cunto aan weligiis dhadhamin. aabbaha oo shaki ku jira ayaa weydiiyey ninka halka uu ka yimid. wiilka iskariyey wuxuu sheegay inuu ka yimid magaalo kale oo caan ah. aabbaha ayaa isla markiiba ogaaday in ninku uusan lahayn lahjada dadka magaaladaas. wiilka ayaa isku dayay inuu iska indho tiro arrintaas, isagoo sheegay inuu ku soo koray gobol kale sidaas darteed oo ugu hadli karin. aabbaha ayaa go'aansaday inuu wiilkiisa cashar u dhigo oo uu ka shifo beentiisa. wuxuu weydiiyey waxaa jirta maqaayad qadiimi ah oo ku taal wadada webiga dhinaciisa ee magaaladaas aad sheegatay, ma xasuusataa waxa calaamada dusheeda ku qoran? su'aashaas ayaa wiilka iskariyey ka dhigtay mid aamusan oo aan jawaab bixin karin. channel ku cusub tahayna saaxiib subscribe saar